laakiin telefoonada u dhiibtid dhibaato ka dhaxlaysa ilmaha ka musaya dabeecad aad u fahmi karin ilmaha waa qalafsan yahay waa isaga aaminsanaya hal maaha kaas saamaynta uu TikTok leeyahay iyo fiidiyoyaashan yar kala fiirsanayna waxa qofka inay ka qaado dulqaadka inuu raadi isla markii wax farxad gelinayo oo maaragtay uu fiirsan karin waxyaalo dheer jiilalkii hore ciyaaraha jireen oo ilmihii banaanka joogi jireen oo baadiyaha la geyn jiray waxay qaban jireen laakiin jiilkan waxay noqdeen jiil guriga soo aruuray ardayda uu soo dul qaadan karin uu dhex joogo bulshada uu dhex joogo sidoo kale uu markasta doonayo balanqaadkii waalidkiis uu sameyn jiray oo ahaa in mobile loo dhiibo ama wax kale lagu abaalmariyo waxay kaloo keeni kartaa in ilmihii uu yeesho dabeecad ama khallafsanaan oo ilmihii kale wax kula dhigo ilmihii uu noqdo mid aanan macnaha dabeecad wanaagsaneyn in ilmihii uu mar walba walwal ku jiro ama niyad jab taasoo keenaysa waxyaalihii uu daawaday inkasta oo tiknoolajiyadda casriga ay leedahay saameyn taban iyo mid togan haddana waxay keentaa dhibaatooyin badan oo saameyn ku yeesha nolosha bulshada dhaqanka iyo caafimaadka shukri oo ka mid ah hooyooyinka ku nool magaalada Garowe ayaa la tacaalaysa saameynta uu ku yeeshay daawashada moobilku ubadkeeda shukri waxay noo sheegtay in ilmaheedu markii uu hadalka bartay ay ku maaweelin jirtay daawashada moobilka isla markaasina uu joojiyay hadalkii kadibna ay ku qaadatay 4 sano inuu dib u hadlo aniga ilmahayga wuxuu dhashay xilligii corona 2019 uu dhashay markii maaragtay dadka dhan guryaha lagu xareeyay oo la yiriyaa la bixin xilligaas uu dhashay marka chance uma haysan in caruur kale la ciyaarno attentionkiisa wuxuu ka heli jiray TV-ga iyo telefoonka marka maadaama uu telefoonki uu dhageysanayo uu haysto uma baahna inuu hadlo telefoonkaas ku mashquul jiray ilmo kale talo kuma jiray talma jirin caruuraha day qof walba caafimaadkiisa ku fakaraya wuxuu noqday deelma aamusan oo aan rabin inuu hadlo kadib waxa dhacday inuu aamuso waxay igu qaatay waqti aad u fara badan ilmahayga trainaysa gareeyo inaan buugaag soo qaado oo aan reading badan u sameeyo oo waxaan ku yiri library-ga aan tagno aan caruuri adu dib waxay igu qaatay waqti aad u badan inkastoo taas wax laga maarmi karayaa telefoonka laakiin aqoon uma lahayn marka dadka waxa ku wacyigelinayaa inay ilmahooda telefoon isaga dhiigin hooyooyinka waxaan fariin u diri lahaa telefoon xal ma ku noqonayo dhibaato badan ka dhaxlaysa telefoon inaad ilmahaaga u dhiibtid waxa wanaagsan ilmahaaga inaad ciyaarsiisid aad waqti sida aad u ciyaari kartidba daawashada badan ee joogtada ah ee moobilku nafsiyan ayay u saameysaa ubadka iyadoo oo daciifisa maskaxda iyo dabeecadda caruurta oo noqda kuwa aan la fahmi karin sida joogtada ah ilmaha moobilada danoqoto maxyaalaha TV-ga waxay saaid u saameynaysaa horta koriinkiisa dhanka maskaxda dhanka fakarka dhanka dhaqanka meelo badan ay ka saameynaysaa hadda u soo noqono dhanka fakarka ciyaalka maskaxdooda way koraysaa soo marka ilmihii markii maaragtay ay fiirsanayaan waxa ku dhacaysa overstimulation wax badan ee u baahneen inay information badan ku korayso soo marka ilmaha dhaqaniyan iyo isku bedelaya dareemiyan iyo fakar ahaan waxay kala saameynaysaa maaragtay concentrationkooda cunuga tamar oo wax ku barto wax ku maqlo ma leh maadaama maaragtay waxaan ay leedahay wax badan maskaxdii ay waves badan u geynayso ee activity badan ku dhalanayso marka cunuga inuu classroom fadhiisto uu ka xasilnoonaado way adkaanaysaa maskaxdii waxay u baahan tahay wax badan hadalku inuu dhageysto way ku adkaanaysaa waxyaalaha badana maaragtay saameynta marka laga fiirinayo xasuusto kale qofkan wixii loo sheegay inuu xasuusto kale saameyn ku leedahay in uu maaragtay maxaa lahaa fakaro oo wax soo saaro way ku adkaanaysaa oo kale markii maaragtay wax fiirsashada badiyaan ciyaalka calaamadaha lagu garan karo in ciyaalka ay qarax tageen ee fiirsiga uu ku tira badan yahay waxa lagu garan karaa kale ilmihii dhaqankooda inuu isbedelo soo cunuga inuu oohintiisa badato dagaalkiisa bato qeelidiisa badato kale in hurdadiisa ay saameyso kale in maaragtay cunugii uu maxaa lahaa waxa ku taqaan uu ahaan oo maaragtay tusaale cunug bashaasha iska faraxsan dadka dhexgal haduu ahaa inuu soo koobmaayo oo maanta dhan wax dhan rabin inuu sameeyo ilaa inuu maaragtay wixiis iska fiirsado mise wixiis ku ciyaaro mise markaas waxa hor yaalo oo maaragtay teknoolajiyada ah in uu ku socdo dib dhac dhanka maaragtay iskuulada iyo waxbarashada iyo maaragtay noqoto quraanka noqoto iskoolka in laga soo cabanayo ilmihii maaragtay performancekiisa ee hoos u imaanayso marka la joogo goobaha waxbarashada sidee ayuu u saameeyaa daawashada moobilku maskaxda ilmaha ha fikirka
iyo firfircoonida. mobilka isticmaala iyo ardayga mobilka isticmaalin farqi weyn baa u dhexeeya. farqiga koowaad wuxuu noqon karaa dhanka waxbarashadiisa maadaama aniga macallimad ahay. dhanka waxbarashadiisa ardayga waxbarashadiisa waxa ku imaanaysa hoos u dhac maadaama uusan badanaa waqtiga gurigiisa joogo ama iskuulka uu ka maqan yahay uu isticmaalayo mobil. sidoo kale ardayga inuu xanaaq badan yahay oo kale inuu ardayga xanaaq badan yahay emotionkiisu inuu aad u fara badan yahay oo kale arday wax yar hadaad lagu dhaho ama wax yar la weydiiyo inuu aad u xanaaqayo ardayda uusan u dulqaadan karin uu dhex joogo bulshada uu dhex joogo. sidoo kale uu markasta doonayo ballanqaadkii waalidkiis uu sameyn jiray oo ahaa in mobil loo dhiibo ama wax kale lagu abaalmariyo. ardaygu wuxuu ka soo bilaabanayaa ilmaha dhalashadiisa ilaa iyo iskuulkiisa wuxuu ku jiraa halkaas saaxad ah in waalidka markuu ilmihiisa soo gaaro xilliga waxbarashada uu soo gaaro ama uu gaaro xilliga tamyiizka wax kala garashada. waagi hore xilliga tamyiizka waxaan jiray 7 sano laakiin hadda waxaan moodaa ardayda ayagoo yar yar inay maasha Allah aqligoodu noqonayo 100 waqti horena sida waxbarashada loo geeyo waxbarashada ay geeyaan waalidku. sidaa darteed waxaa rabaa waalidku inuu u diyaariyo ilmaha bii'o waxbarashada dhammaystiran ay ka maran tahay isticmaal mobil ama lagu abaalmarinayo ilmaha mobil ama markuu cashar ka qoro markuu akhriyo ama markuu wax wanaagsan sameeyo in ay ka saaraan waalidku abaalmarinta ah inay mobil u biibaan ama shaashad ilmaha u biibaan inay halka ka saaraan ama TV ay u shidaan oo kale. ilmaha mobilka isticmaala sometimes waa ilmo markasta xanaaqsan oo yani emotion ah yani aad buu xanaaqsan yahay ilmahaas. wuxuuna waxbarashadiisa dee ilmo markuu iskuul ka baxo ama waxbarashada ka tago mobil loo dhiibayo xilli uu waxbarashada diyaar garoobo ama waxbarashadiisa casharada ku muraajaceeyo ama ku daakareeyo ma helayo maadaama gulinka hore waxbarashada joogo. waxaa laga yaabaa waalidku in habeenkiisa ka mashquuliyaan maadaama ilmaha Soomaaliyeed ay yihiin ilmo very active sidaa darteed ilmaha saameyn ku yeelanaysa ilmaha inuu u dulqaataa yaraanaysa inuu macalinka dhageysto xataa even macalinka hadalkii ku dhahay inuu dhageysto way adkaanaysaa. Dr. Cabdalla oo ah doctorka caruurta ayaa ka warbixinaya saameynta uu ubadka ku yeesho daawashada mobilku. bukaanada badanaa yimaada qaybta caruurta ah isbitaalka kana caabanayo in ilmahooda taleefanada badanaa xilliyada lagu dhiibo ama lagu mashquuliyo. waxyaalaha badanaa ka caabanayo waxaa kamid ah in ilmihii ee bulshada ilmaha kale aysan la ciyaarin social aysan ahayn yihiin ilmo kali oo nool ah. taasi waxay keenaysaa in ilmihii uu soo dhaxgalin ilmihii kale oo san la ciyaarin. waxyaalaha badan ay ka cabanayaan waxaa kamid ah in ilmihii uusan ku hadlaynin luqadii hooyo sida luqada Soomaaliga uuna badanaa ku hadlayo luqadaha uu taleefanka kala macaamilo uuna ka daawado. taasoo keeni karta xataa in macallimiinta ama iskuulka uu ilmihii aado way ku wareeraan oo keeni karto in macallinkii uu fahmo in ilmahan waxba fahmeen. taasoo gaabiskaasna ay keentay ilmihii lagu mashquuliyo waqtiyada uu firaaqada yahay ama totally in ilmihii loo dhiibo mobilka. waxay kaloo keeni kartaa in ilmihii uu yeesho dabeecad ama khallafsanaan oo ilmihii kale wax kula dhigo ilmihii uu noqdo mid aanan macnaha dabeecad wanaagsaneyn in ilmihii uu mar walba walwal ku jiro ama niyad jab taasoo keenaysa waxyaalihii uu daawaday. waxyaalaha kale oo dhibaatada leh ay keeni karto waxaa kamid ah in ilmihii waxyaalihii uu daawaday uu ku dhaqmo haddii ay yihiin waxyaalo xataa khatar oo naftiisa gelin karo waxyaalihii uu fiirsaday uu tarjumo ama waxyaalaha haddii noqdaan khatar ah oo kale oo naftiisa gelin karo in ilmihii uu meel ka soo boodo oo kale in ilmihii uu kale waxyaalaha oo dagaalo kale hadduu ka fiirsado aflaanaha oo kale in wixii ilmihii uu ayadoo reality ama run ah uu sameeyo naftiisa ama ilmihii kale uu khatar gelin karo. ilmaha fiirsada ama aaladaha casriga taleefanada ama TV-da waqtiyada ugu badan hooyooyinka ama waalidiinta ay u dhiibaan waxyaalaha ku imaan kara waxaa kamid ah in ilmihii aragooda uu yaraado. macnaha waa tan ugu badan ay ka dhaxlaan ilmaha ayagoo yar aragooda yaraado ama uu kiyaal ama maraayad ilmo yar wato
oo aanan arkaynin iskuulka markuu joogo sabuuradoo kale. Waalidiinta waxaa wanaagsan in ilmaha u yeelaan waxyaalo ay ku ciyaaraan oo kale, maalin banaanka u geeyaan oo kale, ay ku soo ciyaaraan oo kale, waxyaalo artidoo kale ay baraan, waxyaalo waxbarashada la xiriiro oo lagu ciyaaro oo kale in la baro. In ay u sameeyaan gurigooda dhexdiisa haddii ay suurtagal tahay meel yar ay ku ciyaaraan, in waalidiinta ilmaha ay la sheekaystaan, ay waqti geliyaan, taasaa ugu muhiimsan.